بسم الله إن رنتي أنا أحمد لبقف أو إن نلاشى وحبضان إسكلا فهمي أيام هاي كنا تلقى إن أي نلاشى وذا أي وناجيان كشقيان تاس وحقيب كأ وذا شقينته هدينا نسعاون نلال راحلة أو قبو ودقل مكون نولان كرنو مركا شقوين كسين اسكو عاونا مركا أي تهاي وحبضان أو يسوق جهر وقبتها جرتي وحبضان ولا نيجو قبته haweenka waa la wada fahmaya shaqooyinka guriga iyo waxay qabtaan oo Ilaahay u fudeydiyay oo maartay awoodooda ay leeyihiin ayaan qabta sida dabiiciga ah Axmedna wixii ma aragtay culus oo dhan oo aqalkii iyo wax ka beddelkiisa iyo adeegii iyo ma aragtay wixii aniga igu culus oo dhan ayuu isaguna qabtaa annaga reality hadda ka hadalno anigu shakhsiyan kuma badni laakiin way dhacdaa in aan maaragtay mararka qaarkood aan raashi kariyo quraac soo dhigo maxaan ku raday gabdhahayga quraac aan sameeyay cunaan way jirtaa yaana wax weyn ba iska bedelay leeyahay waxa isbedelku wuxuu la socdaa ayaga maaha laakiin wuxuu la socdaa meesha ay ku nool yihiin qaabka ay u noolaayeen waxa ay sameyn jireen shaqo walba qof walba wuxuu qaban jiray ayay ku xirnayd marka familigu aan bar qoysku Soomaaliya markuu joogay waxa weeyaan wuxuu haystay gargaar ya culays badan haweeneyda kuma dhacayn culays badanna ninka kuma dhacayn marka familiguna uu ballaarna family ballaaran oo cid walba ay ku jirto ayuu ahaa laakiin halkan isbedelka ugu weyn ee reerka ku dhacay waxa weeyaan labadii qof kaligood bay noqdeen xaaskoo ninkii iyo haweeneydii isqabay cid la joogto male marka labadoodii kaliya ayaa isku soo baxay reerku reer ballaaran ma waa labada qof iyo waxay dhaleen ay ku kooban tahay marka culayska Afrika haysto culayska badan ayaa yimid sida hibat ilmaantay weeyaan runtii ninku ma dhici jirin Afrika markuu joogay inuu dhulka xaaqo ama qoriga uu nadiifiyo maxaan ku dhahdayay in uu madaxa ama maaragtay jikada uu galo in uu ilmaha maaragtay bombarka uu ka bedelo ama uu caana siiyo ma dhacaynin maxaa keenay isbedelku waa maxay waa sida hadda la tilmaamay meeshan lagu nool yahay ayaa keentay ciriiriga maxaa yeelay cid ku caawinayso kale oo shisheeye oo banaankaaga iman samjid